barnaamijkii ayaa daawanaysaa si toos ah RTN ayaad wala socotaan oo xarunta dhexe ayuu dabcan barnaamijkeeda ka imaanaya markaana wax akhrisku waxa ay ahayd walina tahay hababka ugu muhiimsan ee soo guurinta miraha aqliga basharkii hore muqdisho gugi afraad waxa ka qabsoomay dabshidka buugaagta xajmiga dadka marba marka ka dambeysana waa uu sii kordhayay kadib markii dadku han iyo himilaba ay u yeelanayeen in ay dabcan tijaabiyaan awoodooda wax curineed sidoo kalena maskaxdooda ay dib uga shaqeeyaan oo ay qoraan buugaag dhaxalgal ah mujtamaca ay la nool yihiin noloshooda wax weyn ka bedela Saara Cabdikariin Warsame waxa ay kamid ahayd dhalinyaradii qorayaasha ee lagu casuumay bandhiga buugaagta carwada ee shalay Muqdisho lagu soo gabagabeeyay Saara waxa ay qortay buug ka hadlaya arrimaha qoyska buugaas waxa lagu magacaabaa hagaha qoyska waxaana uu ka hadlayaa dabcan saameynta uu leeyahay marka guurka uu burburo isagoo aan laga gaarin hankii iyo himladii laga lahaa sidoo kalena waxay qeexaysaa oo ay soo bandhigaysaa tusaalooyin quman oo la xiriira baraaraha qoyska waxay sheegtay in hankeedu yahay inay noqoto la taliye arrimaha qoyska ah sibay tiri aan waqti badan u geliyo in nolosha qoysas badan ay raagaan ayna gaaraan himilada iyo horseedka nolosha ay ka leeyihiin Haajir Cabduqaadir ayaa wareystay ku soo dhawaada magacayga Saara Cabdikariin Warsame waxaan ku dhashay magaalada Sacuudi Carabiya khaasatan Riyaad waxaan dhashay sanadii 1999 Soomaaliya waxaan dib ugu soo laabtay 2002 halkaas ayaan ka bilaabay dugsigeedii Quraanka Kariimka iyo dugsigeeda hoose iyo dhexe iyo saraba 2014 waxaan ku biiray jaamacad Islaamiya aan hadda ka qalan jibiyay iyo jaamacadda Banaadir aan hadda dhigto aan ka dhigto low sidoo kale waxaan ahay qoraaga buugan hagaha qoyska buugayga wuxuu ku saabsanaa buuga arrimaha qoyska iyo ka sheekeynayo magaciisuna wuxuu ahaa hagaha qoyska runtii waxaan sidii karaa buug haddii ay ummadda Soomaaliyeed ku dhaqanto ama ay akhriso ay ka badbaadi karaan burburka iyo isku dhaca iyo isfaham la'aanta kala haysto dhammaan Soomaaliyeed buuga qoristiisa waxay ugu qaadatay sanad iyo bar ay ugu qaadatay qoristiisa walaahi waxay ugu dhaliyay waxay tahay waagii ayaray ahaa dugsileeda waxa arki jiray ilmo yar yar ah oo kiligooda laamiis ka soo goonayo oo aan haysanin xanaano waalid sidaas marka aad ho maxaa hooyo aabo igu dhigi jireen hooyo aabo waa isdagaaleen aniga markaas maan aqoonin dabcan dagaal iyo waxaas markay ka wadeen markii aan soo gaaro dugsi dhexe iyo markaas ayaan ogaaday dagaalka inay ka wadeen inay isfuraan amal furitaankaas waxa ku baaba'aya qoys waxa kaloo ku baaba'aya ilmaha ku dayaclaan ku dhacayso sidoo kale waxa igu dhaliyay ugu muhiimsanaa waxay tahay maadaama aan suugiyay akhris badan iyo baaris badan waxa ii soo baxay inay tahay qoyska inuu yahay meesha ugu muhiimsan oo ummadda ay ku hormari karto maadaama aan arkay isfaham la'aantii qoysaska sababtii ugu muhiimsanayd oo qor buug ee tahay hagaha qoyska ها ويجو جرتا إن شاء الله تعالى بوق يجوه ريان قرايا بوقان هجها قيسك ما دام عن جعل مستقبل كدو إن النقضاء لا تلي أرمها قيسك وأنا بوق يجوه ريان قرا إن شاء الله وحن رجينا يا إن نقرد دون بواك لا أي كلام ده سيدو أركان مركب بالشدة مركب بواكتنا تقول بسين بالشدة سيدو كو أركان أصحابتا الرجال dadkii ka qayb galay barnaamijka sidoo ku arkay wallahi runtii aad ay igu dhiirigeliyeen su'aalo badan way weydiiyeen oo ah adigoo da'dan jirta sidee ugu qortay book oo ka sheekeynaya qoys runtii sida wada ogna qof walba wuxuu jecel yahay inuu mustaqbalka gaaro wuxuu ku suubinaa yani heer oo jecel yahay inuu ka gaaro anagana waaga ayara waxa jeclaay inaan noqdo la taliye arrimaha qoyska sidaas daraadeed asxaabteeda aad ay igu dhiirigelisay waxaan igu dheen hor u socon sanadka dambe maxaa rajaynaysaa inaad ugu qayb qaadato sanadka dambe waxaan rajeynayaa insha Allah taala inaan la kulmi doono wajiyaal aad u qurux badan sidoo kale inaan buug cusub la imaan doono insha Allah waa hagaagtaasi waxa ay ahayd Sahra Cabdikariin Warsame oo kamid ahayd qorayaashii lagu casuumay ka qaybgalka dabshidka buugaagta ee Muqdisho caasimada xamarkaasi oo dadyo badan oo hal abuur ay ka soo qayb galeen si bulshada ay ula wadaagaan xigmadda nolosha iyo sidoo kale fahamka quman ay ka haystaan ahmiyadda
wax qorista iyo sidoo kale akhrintu ay